ayatullah cali khomeini waa hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka iiraan waana mas-uulka dhinaca maamulka ugu sarreeya waddankaasi wuxuuna leeyahay marka ugu dambeeya ee dhammaan arrimaha la xidhiidha siyaasadda iiraan ninkan oo si weyn looga yaqaano inuu jecel yahay fikirka ay ku dhisan tahay jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ayaa marar badan weerar afka ku qaaday dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka oo uu aad u necab yahay inkasta oo uu si buuxda u taageeray kooxda dalkiisa u qaabilsanayd wadaxaajoodka barnaamijka nukliyarka iiraan haddana ayatullah khomeini wuxuu marar badan muujiyey sida aanu ugu qanacsanayn natiijada ka soo baxday wadahadaladii dhex maray iiraan iyo dalalka quwadaha waaweyn ee caalamka ayatullah cali khomeini wuxuu sanadkii 1989kii bedelay hogaamiyihii ruuxiga ahaa ee iiraan ee uga horreeyey ahaana ninkii aasaasay jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan ayatullah ruuxullah khomeini xilligaasi ka hora wuxuu 2 jeer oo isku xigtaa madaxweyne ka soo noqday iiraan intii u dhaxaysay 1981 ilaa 1989 bishii Sebtembar sanadkii 2014 ayatullah khomeini oo 72 sano jir ah wuxuu magaalada Teheraan ku maray qalliin lagaga sameeyay kaadi haysta lama sii shaacinin wax macluumaad ah oo ku saabsan qalliinka maadaama xaaladda caafimaad ee ayatullah ay tahay mid mar walba la qariyo 7 sano ka hor waxaa soo baxay warar la isla dhex marayay oo ku saabsanaa geerida ayatullah kuwaasi oo ku faafay iiraan iyo guud ahaanba caalamka sababta loo maleeyay inuu dhintay waxay ahayd kadib markii uu qeyriyey hargab daran oo ku dhacay sidaasi awgeedna uu kaga qaybgeli waayey munaasabadda dadweynaha awoodaha su'aalaha la geliyey xilligii uu madaxweynaha ahaa ayatullah khomeini wuxuu si joogto ah khilaaf u soo kala dhex geli jiray ra'iisul wasaarihii markaasi xilka hayay mir xuseen musaafi kaasi oo uu u arkayay in uu dhinaca bidix u janjeeray hase ahaatee maadaama uu musaafi taageero ka haystay hogaamiyihii ugu sarreeyay xilligaasi ee ayatullah ruuxullah khomeini waxaa dhammaan aragtiyada kala duwan ee ay ka qabeen arrimaha dhaqaalaha bulshada iyo diinta waxay ahaayeen kuwa sii xoogaysanayay marba marka ka dambaysa mid ka mid a tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu qaaday ayatullah cali khomeini kadib geeridii hogaamiyihii hore waxay ahayd in uu isbeddel ku sameeyey dastuurka islamarkaana uu meesha ka saaray kursiga ra'iisul wasaaraha ayatullah cali khomeini wuxuu gartay in aanu haysan jacaylkii iyo taageeradii loo hayay ninkii uu bedelay ruuxullah khomeini wuxuu ahaa wadaada heer sare gaadhsiisan oo wax kasta loola soo noqdo markii uu cali khomeini oo aan ahayn qof wax kasta loola soo noqdo uu xilka qabtay waxaa lagu khasbanaaday in dib oogis lagu sameeyo dastuurka si xilka qofka wax walba loola noqdo ay u qabtaan wadaado darajo hoose ah wuxuu kursigiisa hogaamiyaha ugu sarreeya ku xoojiyey in uu samaystay shabakado kala duwan oo isugu jira hay-ado iyo laamaha ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka awoodda badan ee ilaalada jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan sanadkii 1997 waxaa si weyn u soo shaabaxday in uu isku dhex maray ayatullah cali khomeini iyo ayatullah xuseen cali muntasari oo ahaa sheekh si aad ah loo qadariyo ayatullah muntasari oo ahaa nin hadalkiisa dhegta loo wada raaricin jiray oo dhintay 2009kii wuxuu su'aal geliyey awoodda la siiyey hogaamiyaha ugu sarreeyay iiraan arrintaasi waxay sababtay in la xidho dugsi islaami ahaa oo weerar lagu qaado xafiiskiisa ku yaalay magaalada Qom islamarkaana muddo kooban la geliyey xabsi guri sida uu go'aanada u qaato ayatullah cali khomeini ayaa sidoo kale la cambaareeyay markii uu la saftay madaxweynihii hore ee iiraan maxamuud axmed najad kadib markii lagu murmay guushiisii natiijadii doorashadii 2009kii dad badan oo reer iiraan ah ayaa waddooyinka ku mudaharaaday iyagoo ka soo horjeestay natiijada murashaxiintii lagaga guulaystay doorashadii ka dhacday dalkaasi mir xuseen musaafi iyo mahdi karobi waxay dood ka keeneen natiijada kama dambaysta ahayd laakiin labadoodaba waxaa la xidhay bishii February sanadkii 2011 waxaana wehelinayay master musaafi xaaskiisa sahra rahnafarda kadib markii ay shacabka ugu baaqeen in ay waddooyinka ku dibad baxaan si loo taageero dhaqdhaqaaqyada dimuqraadiyad doonka ah ee ka socda Masar iyo Tunisia
ayatullah cali khomeini maadaama uu yahay hogaamiyaha ugu sarreeya wuxuu awood u leeyahay in uu si toos ah iyo si dadbanba u soo xulo xubnaha golaha mas-uulka ka ah kormeerka doorashada iyo turxaan bixinta murashaxiinta xilligii ay dhacaysay doorashadii 2004 golahaasi waxay gaashaanka u daruureen kubanaan murashax oo isu soo taagay kuraasta baarlamaanka kuwaas oo ay ku jireen siyaasiyiin badan oo dhexdhexaad ah kuwo isbeddeldoon ah iyo xubno ka tirsan dowladahii hore xisbiga talada haya ayaa ku guulaystay 70% ka mid ah codadkii laga dhiibtay doorashada sanadkii 2013 golahaasi waxay tartanka xilka madaxweynaha ka hor istaageen akbar hashimi rafsanjani oo ah madaxweynihii hore ee Iiraan iyagoo u sababeeyay in da'diisu ay weynaatay waxaana la xasuustaa in Mr Rafsanjani uu taageeray dibadbaxyadii ka dambeeyay doorashadii 2009 ayatullah cali khomeini wuxuu si joogta u taageersanaa siyaasiyiinta garabka talada haya iyadoo xitaa ay soo baxayeen dhaliilo ku saabsan in la xagal daaciyo dimuqraadiyadda xidhiidhada arrimaha dibadda munaasabadii xilka madaxweynaha loogu caleema saarayay 1981 ayatullah cali khomeini wuxuu ballan qaaday in uu bannaanka soo dhigi doono dadka damacsan in la bedelo hanaanka maamul ee Iiraan kuwa fikirada kale mudnaanta siiya iyo weliba kuwa garabka bidix ee uu saameynta ku leeyahay Mareykanku sanadkii 2009 markii uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu soo bandhigay Iiraan bilow cusub oo dhinaca diblomaasiyadda ah ayatullah cali khomeini waxa uu ka bixiyay jawaab dabacsan wuxuuna sheegay in aanu wax isbeddel ah ka arkin habdhaqanka Mareykanka iyo siyaasaddiisaba isagoo farta ku fiiqay taageerada Washington ee Israa'iil iyo cunaqabataynta ka dhanka Iiraan laakiin wuxuu sheegay in haddii madaxweyne Obama uu wax ka bedelo mowqifka Mareykanka ay Iiraan iyaduna dhankeeda diyaar ka tahay sanadkii 2013 markii loo diyaar garoobayay wadaxaajoodkii u dhaxeeyay Iiraan iyo quwadaha caalamka ayatullah cali khomeini wuxuu sheegay in aanu ka soo horjeedin diblomaasiyadda isagoo aan hore looga baranin hadallo noocaas ah ayuu sheegay in diblomaasiyaddu ay horseed u tahay dhoolla caddaynta wuxuuna codsaday in wadaxaajoodka la guda galo bishii Noofembar ee sanadkii 2013 Iiraan iyo dalalka quwadaha adduunku waxay isla gaadheen heshiis hordhac ah oo ku saabsan nukliyarka kaas oo ay jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan ku aqbashay in ay hakiso barnaamijkeeda nukliyarka taas beddelkeedana laga khafiifin doono cunaqabatayntii waddankaasi saarnayd laakiin 7 bishii Julaay sanadkii 2014 laba toddobaad oo ka hor intii aan la gaadhin xilliga kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in heshiiska nukliyarka la gabagabeeyo ayaa ayatullah khomeini wuxuu khudbad uu shacabkiisa u jeediyay ku fashiliyay arrimo farsamo isagoo sheegay in Iiraan looga baahnaa in ay awood weyn u yeesho uraniumta laga sameeyo hubka nukliyarka xilliga heshiiska loo qabtay ee ahaa bishii Julaay waa la dhaafay labada dhinacna waxay qabsadeen ilaa bisha Noofembar ee sanadka 2014 ka hor iyo kadib intii uu socday dagaalkii uu Mareykanku horkacayay ee lagu qaaday Ciraaq khomeini wuxuu dhaleeceyn jiray siyaasadda maamulka Washington qabsashada Ciraaq kama dhigna cunto afka la gashado oo Mareykanku liqi karo ayuu yiri ayatullah cali khomeini bishii Juun sanadkii 2014 kadib markii ay xogaga mitiniinta jihadoonka ah ee IS qabsadeen waqooyiga Ciraaq ayatullah khomeini waxa uu mar kale ka soo horjeestay faragelinta uu Mareykanku ku sameeyay waddanka Ciraaq laakiin bishii August ee isla sanadkaas wuxuu soo dhaweeyay magacaabista Haydar al-Abadi oo laga dhigay ra'iisul wasaaraha Ciraaq waxaanu jaray taageeradii ay Iiraan u haysay Nuuri al-Maliki oo hore xulafo u lahaa dalka Iiraan daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg abka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka sabtv.com fadlan nagu xidhnow adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil
haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida